tacsi iyo tiiraanya leh qoyskii iyo eheladii iyo dadka Puntland ay ka geeriyootay Aisha Ilyas runtii waa ficil aad u xun waa ficil aynan aqbali karin bulshada iyo dadka reer Puntland waa arrin tiiraanya iyo murug leh waa arrin ay iska kaashanayaan ay wadaan hawlaheedii ay wadaan wasaaradaha ay khusayso ay ugu horeyso wasaaradda haweenka wasaaradda amniga cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka waxaan ku mashquulsanayn maanta sidii aan iskugu xiri lahayn hawlaha waan la xiriirnay qoyska ee Aisha ka geeriyootay waan la xiriirnay dhammaan hay'adihii ay khusaysay arrintani waa arrin u baahan inay bulshada reer Puntland dhammaanteed ay iska kaashadaan insha Allah waxaan dawlad u nahay in arrimaha noocaas ah aanan marnaba ugu garaabin dagarqabayaashii geystay Puntland waxaa ka mid ah qofka wanaagsan baa ina ka mid ah midka dhibta geysta oo waliba arxan darrada ah oo sidaa u dhaqmaya ma aha mid naga mid ma aha waa arrin aan u baahanahay dawladda haddaan nahay inay sida ay tahay aan wax uga qabano mar labaad waxaan u dirayaa qoyskii Aisha tacsi baan u dirayaa waa idin la joognaa idinkaba maqlin arrimihii baaritaanka inaan ka horraco ma rabo wax alla wixii ku saabsanaa baaritaanka keyska waa lagu jiraa waxaan rabnaa inaan la wadaagno tiiraanyada oo sidii reerka loo turxaan bixin lahaa tiiraanyada iyo arrinta khaaska oo soo wajahday waxaan ku jirnaa baaritaankii hay'adaha amnigu way ku jiraan oo baaritaanka u baahnaa oo keyska u baahnaa waa lagu jiraa waxa lagu jiraa wax alla wixii u baahnaa maanta in la qabto hadii alla idmo ma ilaawi doona Aisha waxay ka mid noqon doontaa halyeeyada reer Puntland oo aysan taariikhda iyo bulshada reer Puntland inay ilaawi doonin wasaaradda haweenku si khaas ah bay arrinta u khusaysaa iyada oo tacaddi aad u ba'an loo geystay ilmaha yarka ah iyadoo haddana xuquuqdeedii nafteedii iyo loo qoonsaday arrin hore u dhacday maaha Puntland cases badan way ka dhaceen oo ma qarinayno arrintaas inay tahay arrimo dhacay oo kufsigu u jiri jiray laakiin maaha arrintan arrin kufsi ku kooban maaha waa arrin aad iyo aad murugo u leh insha Allah bulshada reer Puntlandna maalmaha soo socda wixii xaqiiqo ah ama wixii jira waa la wadaagaynaa waana u tacsidaynayna familkii iyo maxay dadkii ay sida khaaska uga geeriyootay ama ay uga baxday Aisha